kumanaan kun oo qof oo ay ka mid yihiin culamaa u diinka dariiqada suufiya ayaa ka qayb galay gabagabada siyaarada 125aad ee Sheekh Cabdiraxmaan Suufi Sheekhalbeledkii gobolka Banaadir. siyaarada 125aad ee Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Shaanshi Sheekh Cabdiraxmaan Suufi Sheekhalbeledkii gobolka Banaadir oo caan ku ahaa faafinta diinta Islaamka waxa uu ku suntanaa Sheekh Cabdiraxmaan Suufi diidmada oo kala hor yimid gumaystihii Talyaaniga isagoona dadka Soomaaliyeed ugu digi jiray in ay la macaamilaan gumaystaha waxaana Sheekh Cabdiraxmaan Suufi sidoo kale uu ahaa caalim faafiya diinta Islaamka isla markaana qoraha kitaabo kala duwan. codka xerta dariiqada suufiya oo digrinaya ayaa meelo fog laga maqlayaa maanta gabagabadii siyaarada Sheekh Cabdiraxmaan Suufi oo lagu qabtay halka xaafadda Sheekh Cabdiraxmaan Suufi ay kaga taalo magaalada Muqdisho degmada Warta Nabadda ee Kiswardhigley waxaana sidoo kale goobta ku sugnaa kumanaan kun oo culummada dariiqada suufiyada ah. siyaarada Sheekh Cabdiraxmaan Suufi ee 125aad waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda Xasan Macalin, wasiirka wasaaradda amniga Jenaraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, xildhibaano, mas'uuliyiin, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka golaha shacabka Jaylaani Nuur Iker iyo kumanaan kun oo qof oo ka kala yimid gudaha iyo dibadda culamaa u diinka kala socotay dariiqada suufiyada iyo kumanaan kun oo qof. ugu horreyn Sheekh Cali Dheere oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Sheekh Aadan Macalin Sugow gudoomiyaha midowga culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay siyaarada 125aad ee Sheekh Cabdiraxmaan Suufi iyaguna ku dheeraaday taariikhda sheekha. Sheekh Suufi wuxuu ahay calam Soomaaliyeed, caalim Soomaaliyeed, caabid Soomaaliyeed, wadani Soomaaliyeed ayuu ahay. waa nin ilal aanadan anaan ku arkin waddanka Soomaali nin kaalintiisa buuxi kara. maxaa yeelay xilligii isticmaarka uu ka soo horjeeday wuuna difaacayay waana isticmaarkuna inay xataa qaabilaad ay ka helaan ayuu diiday. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa mashaaikhdii ziyaarada soo tartiibisay ziyaaradan oo waqti dheer soo socotay soo tartiibisay oo galabta khatinkii joogtaan u mahad celinaynaa. qof walba maqaamku uga soo qayb galayaan leenahay jazaakumullahu khayran, khaasatan dadka ahlusajaayaadka ah ee ahlulmaqaamaadka ah ee jamaacaadka horkacayaan u mahad celinaynaa. sheekheena Sheekh Suufi wuxuu ka mid ahaa sida horeba loo tilmaamay arkaantii shareecadeenna islaamka iyo qiyamkii diinteenna dalkan uga soo halgamiyuu ka mid ahaa. waxaadna ka garan kartaan oo maqlaati furo ah ziyaaradiisii oo maanta 125 sano ah 125 jirsatay iyo siday u socoto sanad walba ku soo ziyaaraysa. dhankiisa xildhibaan Cumar Shariif Jeeg oo ku hadlayay magaca xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galay siyaarada 125aad Sheekhalbeledkii gobolka Banaadir Sheekh Cabdiraxmaan Suufi ayaa dhankiisa ka hadlay goobta. waxaan aad ugu faraxsanahay shacabka ka kala yimid dalka iyo dibaddaba mar kastana sheekoodii weynaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Suufi oo ahaa nin caalim ah ee Soomaaliya dhan laga yaqaano taariikh badan leh culimada halkaan iskugu imaado dhan waxa way all inay wadankooda u duceeyaan faataxada u maraan si Ilaahay Soomaaliya ay u noqon lahayd Soomaaliya oo wada jir ah oo hal ah annagoo kaga faa'iideysanayno munaasabadda sheekha awgiisa waa in wadanka loo duceeyo ee la yiraahdo mucaarad iyo maxaafadbo inay hal meel iskugu imaadaan ay ka shaqeeyaan danaha dalka iyo dadka iyo diinta. wasiirka amniga gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cismaan Fartaag iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macalin ayaa si wada jir ah hadallo ugu jeediyey gabagabada siyaaradii Sheekh Cabdiraxmaan Suufi ee 125aad. dhammaantiin waxaad tihiin dad soo xaadiray oo u soo xaadiray inay ka qayb qaataan
سيارتي الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الله الشيخ صوفي محبدي يقال كعيلكي دينتي نوقبتين محبدي يقال كعيلكي رسولكي نوقبتين محبدي يقال كعيلكي طريقتي iyo maxaa la yiraahdaa culimo diinkiina aad u qabteen iyo diintiina barakaysan aad u qabteen baa iskugu timaadeen iskugu maadin imaanin hab qabali ah iskugu maadin imaanin hab ururo ah iskugu maadin imaanin hab mataqaana qof la iskugu yeeray iskugu maadin imaanin waxaad u timaadeen dhammaan maxabatullaahi iyo maxabatu rasuul baad uga soo gashay dariiqada siyaarta sheekanaga sheekh suufi waxaan marka hore ilaahay ka baryahayaa dhammaan Soomaaliya inuu siiyo midnimo iyo israac iyo isjecel iyo maxabada isku timaadeen iyo maxabad la mid ah in Soomaaliya ilaahay qalbigooda soo galiyaan marka hore ilaahay ka baryahayaa marka labaad waxaan leeyahay mar haddii aad isu timaadeen oo dariiqadii iyo sheekh iyo sifaadkiisi iyo maxaa la taariikhdiisi uu ka hadlay sheekheena Sheekh Cali Dheere oo uu noo furay sheekheena Sheekh Axmed Sheekh Uweys annaga wax hadal banaguma banaano waa inaan dhahno oo kaliya ilaahay ziyaartanada maqbuulaha ka dhigo ilaahay ziyaartanada maqbuulaha ka dhigo ilaahay sheekanaga aan isku nimid mataqaana maqaamkiisa iyo maqaamka weyn Allah gaarsiiyo maanta halkaan isugu keenay ziyaarada Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Suufi inaan maanta halkaan ku wada xusno maqaamaadkiisii ilaahay siiyey inaan ku wada xusno waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay oo qalbigaygu ugu degan yahay inaan maanta halkaan maalinkii la gabagabaynayay ziyaaradii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Suufi inay maanta culummadii sajaadaadka culummadii dalkan oo dhammaan sida wasiirku iyo xildhibaanadu iyo mas'uuliyiinta kaleeto dhammaan ay sheegeen dad dariiqadaas ama dariiqooyinku abtirsada inay yihiin aad iyo aad ay runtii noo farxad gelinee waxaana farxad gelinaysa ducada dalka iyo dadka iyo dowladda halkaan ka baxaysa ayaa runtii aad noo farxad gelinaysa maanta meeshaan markhaati ayaa laga wada yahay dadkan iyo dadweynahan maxabada isjacaylka walaalnimada isugu yimid oo isgarab taagan oo intooda nool iyo intooda dhimatay isxusuusta runtii baahi weyn ayuu dalkan iyo dadkan u qabaan nimanka laga sheekeeyey oo khawaarijta ah oo dawladdu u bixisay khawaarij u bixisay kuna raacday culimmadii hore muslimiinta ku raacday inay khawaarij yihiin dawladnimada kaliya duulaan kuma ahan dawladnimada iyo diinta ay duulaan ku yihiin gudoomiye ku-xigeenkii hore ee koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Jeylaani Nuur Iikar Sheekh Suufi ayaa ka hadlay siyaarada 125aad Sheekh Albeledkii gobolka Banaadir ee Sheekh Cabdiraxmaan Suufi sheekha wuxuu aad iyo aad uga siin jiray masaakiinta iyo fuqarada subaxii waa ka soo bixiyay gurigiisa suuqoo imaan jiray jiiraankoo fiirin jiray ehelkoo fiirin jiray suuqoo imaan jiray waa weydiin jiray sicirka markay yidhahdaan intaas waaye sheekha wuxuu yidhi dadkaan la dhimin sicir burarka la dagaalami jiray anaa ku daraaya dadkaan la dhimin micnaheedu waxaa waaye in ka sokow la dagaalankii isticmaalka ka sokow cilmiga oo faafinaya haddana arrimaha bulshada aad ayuu mataqaanaa sheekha u taxagelinaya sheekha wuxuu dhashay 1829 miilaadii u dhashay wuxuu geeriyooday xijaabtay 1905 micnaheedu waxaa waaye taasi wuxuu ku dhintay 78 sano maalin jimce u dhintay ilaah u naxariistee waxaa janaasiiska soo qayb galay ummadda xamar oo degan dhan sheekha soo shacal dheer noo sheegay culummada uu soo saaray waxaa ka mid ah sheekh yuusuf diraad sheekh cabdullaahi qudbi sheekh maxaa la yidhaahdaa khaasim baraawi sheekh maxamed faqi yuusuf culummada kulle waxay isku raaceen ay yidhaahdeen laa taqis bisheekh suufi sheekh suufi lagama sheekeyn karo hal maalin ama hal bil ama sanad wixiisu dhan haddii la yidhahda lama soo koobi karo ugu dambayntii waxaa siyaarada soo qatimay islamarkaana ka duceeyey Sheekh Axmed Sheekh Aways Sheekh Muxuudiin Sheekh Aways oo ah sheekha ugu sareeya tariiqada qaadiriya waxaana uu hadallo iyo ducooyin ka jeediyey gabagabada siyaarada 125aad ee Sheekh Cabdiraxmaan Suufi
إجازة أنتي شيخين شيخ صوفتي شيخين أو شيخ ويس الله نوغا ديغو دالكين يدادكين والله كدجيو قف والبابا دل يدبد أنت أحباب وكتمد مرادات كود الله صغره حاجين حاج إيمان أسيغن الله نوع عافيه شيخ جيلاني الله نوع عافيه شعلي الله نوع عافيه أنت أخيار أحباب وحنوصا مريدين عاشقين الله نوع عافيه عز الدارين خير الدارين الله نصيب أحبابت أهل السنة والجماعة تحابد يترابد يسكو حرنان الله سيء تفرارق الله ككوري أعدادنا الله هاي شر شيادين الله حجاو باسي بلاي الله نجا كوريو أبارت إيه عليس كسون نخنقنا يعني محاتر أهدين الله نجا دول قاضي عبد العزيز إبراهيم حمد أوكي يونيفرسال تي في مقدش.